wararkii doorashada ayaanu ku jirnaaye axmed cabdi hurre oo ah madaxa howlgalka guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee puntland ayaa maxamed xasan dhalo uga warramay doorashada maanta iyo qaabka ay u qabsoontay. adeer doorashadii waxay u dhacday si wanaagsan, si hufan bay u dhacday. dadku waxay soo xusheen xubnihii u tartami lahaa, waxay soo xusheen odayaashoodii, waxay soo xusheen ergadoodii. cid kasta oo noo timi oo annaga guddi ahaanna soo qaabisheen si wanaagsan baan u qaabilay, ula tacaamulay. marka insha Allah doorasho wanaagsan ayaana noo dhacday maanta. waayahay 16 kursi baa boos oo la 16 6 saac gudahooda lagu soo gabagabeeyay. su'aal baa saaran oo waa maxay sababtu baa la leeyahay maxay tahay? horta adeerow doorashadu waxay leedahay adduunyada shuruuc. doorashada annagu waxaanu keennay wax kasta oo doorashada agabkii baan keennay, sanaadiiqdii baan keennay, waraaqii codayntaan keennay, guddiyadii baan diyaarinay, farsamadii wax kasta ayaan diyaarinay. annagu murashaxiinta ma soo xulanno, waxaanu soo xullay shaqadii inaanu farsamo ahaan diyaarinana la ka rabaa. dadkii murashaxiinta markay yimaadeen qof kasta asaga ayaa wuxuu odhanayaa doorashadii waan ka tanaasulay. marka annagu sababta ma naqaano tanaasulka iyaga wax ay ku soo ballameen inay tahay iyo inay ka timi iyo midna annagu warka ma hayno. marka adeerow laba murashax baa imaanaya, labadii murashax mid ka mid ayaa markii meesha la yimaado halkii doorashada uu ka tartami lahaa ayuu wuxuu leeyahay waxaan ka haray tartankii doorashada. marka anagu waxaan xaq u leenahay inaan doorashada sanduuqna lagu codeeyo, in gacanta la taago. waxa shaqada maanta inay fududaato keenay dadkii ayaa badankoodii tanaasul la yimi oo doorashadii ka haray. marka sidaas ay ku timi inay waqti ku gaabnaado, laakiin anagu waxaan ku talagalnay jadwalka doorashada 2 maalin waad aragteen, waana u diyaarsanayn, waana ku soo talagalnay. laakiin liiskan in laba tartanto idinka soo saaray oo labada musharax dad ka badan baa suuqa tartamaya oo waa borar soo dhijisanaya warqadda kama dhamaysta guddiga doorashada ka soo baxday iyo liiskan laba qof inay tartamaan maxay tahay taas? maxamed aad baa u mahadsantahay, waa su'aal aad u fiican. adeerow annaga fiiri ciddii noo timi oo na weydiisata inay tartamayso ayaanu annagu waxaanu u ogolahay inaanu siino dukumiintiga sharciga doorashada. marka haddii aad soo hesho magaalada gal qof aan u soo diidnay annaga dukumiintiga tartanka doorashada annaga ayaa dembiga yeelanayna. laakiin ciddii noo timi oo ijraa'aadkii looga baahnaa soo martay ayaanu tartanka annagu u qabannay. marka sidaasay ku yimaadeen dadku. axmed waxaa iyadana su'aal la iska weydiinayaa qoondadii haweenka ilaa iyo maanta marka la eego 31 xubnood baa soo baxay xubnihii baarlamaanka ee Puntland laga dooran lahaa oo 37 6 kaliya 5 baa gabdha. markaasoo qoondadii haweenka su'aal ma saaran maxay kula adeer horta qoondada haweenka marna kor baa laga dalacaa, waxa la leeyahay 37 waxa laga rabaa 11 marna sharci kala jiro waxa la leeyahay reerkii leh kursi iyo reerkii 2 kursi leh laguma leh. marka reerkii 3 xubnood leh annaga waxaan ku khasbaynaa inay kursi keenaan, laakiin reer hal kursi leh kuma khasbi karo gabar adeer. marka saasay ku tahay kuraasta hal iyo 2 ayay leeyihiin. qoondada haweenku meesha ay ka khaldan tahay waxa weeye dadku kursi iyo 2 kursi bay leeyihiin. ayaga marka cid ay keensadaan oo u soo tartanta oo u timaada gabdhuhu mid kale tartanku waa u furaa, kulli ayaga tanaasulay annagu kama uma diidan tartanka. marka saas weeye adeer. waxa qoraya xeerka doorashooyinka in warbaahintu ay ka mid tahay dadka goobjoogayaasha ka doorashada way joogaan way muuqdaan, laakiin muuqaalkii tooska ahaa oo live ka ahaa adduunka oo dhan idinka daawanayay ma jirto, guddigaana joojiyay baa la leeyahay. adeer waxa weeye arrinta ku saabsan muuqaalka oo live ka ah bal horta fiiri doorashooyinka Soomaaliya fiiri annagu wax qalad aan galnay ma jiro. waxaan dhaqaalihii saamix maayo waddanka wax dhibaatooyin badan ah jira adeer gacaliye. marka dad badan wax badan waxyaalahan kama oga. marka waxaan joojinay annagu ma laha, laakiin duruufaadka jira ayaa sababaya waxyaalaha qaar. xagga kaleeto waxaa jira rag siyaasiyiin ah oo cabanaya oo qaarkood federaalka xubno ka ahaayeen oo kamid yahay wasiirka qorsheynta Soomaaliya oo kamid yahay wasiirka beeraha Soomaaliya. waxay leeyihiin guddigu siday wax u wadaan fair maaha. maxaad leedahay? walaalahay niman saaxiib baan nahay, niman siyaasiyiin, niman Puntland matalayay waddanka ka soo shaqeynaya weeye. sidaadaba in ceeb la sheego waxa ka fiican in run la sheego. walaalahay hadda inta noogu yimaadeen meeshaan joognay annagu aan wax qalad ka galay annaga ayaa dembiga adeer iska leh. laakiin beelahoodii ayaa kuraasi loo soo astay, ismadoodii baa astay kuraas, reerahoodii baa astay. dadka wax doonaya ayagaa ku cabanayay odayaasha dhaqanka waxna loo ku daayo. odayaashii dhaqanka ayaana waxaan u soo gartay beelahoodii oo u soo astay adeer gacali. document baan haynaa annaga kulli odayaasha dhaqanka iyo dadka document baan ka haynaa. marka saasay wax walba ku yimaadeen, ism walba beeshu u astay ayaanu annagu kursigii marinay. mid kale nooma imaan ba hadda nimankaas maxay naga gacowdaan hadday noo yimaadaano nala fariistaano waxna weydiiyaano adeer eed baan lahaan lahayn, laakiin maxaa bay na weydiiyeenba maba isarage maba nala soo kulmine. kaasi waxa uu ahaa axmed cabdi hurre oo u warramayey maxamed xasan dhalo.